بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشينا qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel walbo aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan diradda ku saari doono isla markaana ku faaqidi doono xuska munaasabada 21 Oktoobar oo ku beegan maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay taladii dalka la wareegeen sanadkii 1969 kaas oo dalka ka talinayay muddo 21 sano ah. barnaamijka kagama hadli doono kacaankaasi ma loo darsaday mise waa laga reestay balse ujeedka ayaa ah mid aanu ku faaqidi doono isla markaana dadka aanu ku xusuusin doono sida waqtigaasi Soomaaliya ay ahayd iyo cududii military iyo tay ahaanba iyo waliba guud ahaan sida ay adduunka looga qiimeyn jiray loogana ixtiraami jiray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan idin leenahay la socod wanaagsan. kacaankii Soomaaliya waxa uu ahaa maamulkii ugu talada dheeraa ee Soomaaliya waxa uu dhashay maanta oo kale 21 Oktoobar 1969 tallaabadii ciidanka xoogga dalka ay ku afgambiyeen hogaankii dalka ka jiray ayaa timid kadib markii 6 cisho ka hor la dilay madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cabdirashiid Cali Shamaake oo booqasho ku joogay magaalada Laascaanood. waxaana afgambigaasi uu ku soo beegmay iyadoo biri oo kale loo ballansanaa kulan xasaasi ah oo ayaha dalka looga arinsanayo. waxaa dhacay afgambi aan dhiig ku daadan iyadoo talada dalka ay kula wareegeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliya. fiidnimadii afgambiga dhacay aroornimadeedii oo talaado ahayd wariye ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa warbixin ku cabiray sida jawiga uu ahaa xilligaasi. iyo dareyska ayaa la wareegay xukunkii dalka Soomaaliya inqilaab ay dhigeen oo wararku ay sheegayaan inuusan dib u daadan waxaana ay sameeyeen majlis al-inqilaab. afgambigaasi wuxuu dhacay salaadii saacad waxaana ay ku afgambiyeen xukuumaddii Mr. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee ka samaysneyd xisbiga SYL waxaana 6 maalmood ka dambeysay dilkii madaxweynihii Soomaaliya President Cabdirashiid Cali Shamaake oo dilmada imika loo hayo in ka mid ah ciidamada leyska. reeriyowga magaalada Muqdisho wuxuu xigtay waray ku dhawaaqeen majlis al-inqilaabka cusub oo ay sheegeen in afgambiga ay u dhigeen si ay uga badbaadiyaan oo ay uga bixiyaan dalka Soomaaliya. waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuqa iyo xumaan taliska jamaacadda u baraystay inay taliyaan. banjo ayaa lagu soo rogay dalka inta u dhaxaysa 4 galabnimo iyo 10 subaxnimo. waxaa kale oo majlis al-inqilaabku ay ku dhawaaqeen inay u shaqayn doonaan sidii loo baabi'iyo qabiilnimada waxaana la mamnuucay 3 ruux wax ka badani inay jiraan. ciidamada militariga ayaa ilaalinaya oo tuban jidadka magaalada Muqdisho waxaana amar loo siiyey inay baaraan guryaha iyo baabuurta. xuduudda dekejiyaasha diyaaraadka ee dalka Soomaaliya waa xidhan yihiin. majlis al-inqilaabkuna waxay sheegeen siyaasadii dibadda ee dalka Soomaaliya inayna isbedelin.
saraakiishii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waray soo saareen waqtigaasi waxa lagu shaaciyay in mas'uuliyadda dalka ay kula wareegeen ama ku wareegtay gacanta ciidanka xoogga dalka waxaana bayaan ay soo saareen lagu yagleelay golo sare kaasi oo madax looga dhigay General Jaalle Maxamed Siyaad Barre guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayaa caleemo qoyan ku soo dhaweeyay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya ee talada dalka la wareegay madaxweynihii Towrada ahna gudoomiyihii golaha sare Jaalle Maxamed Siyaad Barre ayaa khudbadiisii ugu horeysay waxa uu jeediyay shacbiga Soomaaliyeed 23 Oktoobar 1969 taasi oo ku sharaxaya sababta keentay in talada ay ka tuuraan nidaamkii rayidka ahaa ee dalka ka arriminayay iyo hadafka kacanka uu higsanayo haddaba gibi ahaanba waxaa la mamnuucay axsaabtii siyaasadeed waxaa la xayiray dastuurkii waxaana la abuuray barnaamijyo bulshada lagu dhiiragelinayo inay iskood u shaqaystaan inkastoo waxyaabahaasi oo dhan lagu dhaqaaqay sidoo kalena la kala eriyo xisbiyadii tirada badnaa haddana dalka waxaa lagu magacaabay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya dugsigii tababarka ee Xalanana waxaa lagu amray in qof kastoo shaqaale dawladeed ahi halkaasi uu tago si tababar ciidan uu qaato socod gaar ah ayay leeyihiin markaliya ayay isla wada helayaan taanta socodkooda iyo qiiladooda iyo hadalkooda nool waxa uu yahay mid argagax ku rida iyo niyad jabhad iyo cadowga Soomaaliyeed Towradii Soomaaliya waxay dhiirigelisay mashaariic kala duwan sida mashaariicda beeraha iyo kalluumaysiga waxaana la abuuray laamo kala duwan oo fuliya hawlahaasi dawladii kacaanka waxay kaloo mudnaan muglad siisay sare u qaadida iyo fidinta tacliinta waxaana la abuuray dugsiyo isugu jira hoose dhexe iyo sareba iyo jaamacado kuwaas oo ardaydu si bilaash ay wax uga baran jireen intaay farax weyn in maanta la furayo saldhigga weyn xarunta waxbarashada heerka jaamacadeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed waa jireen kuwa hore aan u dhisnay hab ka fudud ama ka yaryar inta hadda kan uu yahay laakiin waxaan aaminsanahay tan maanta aan furaynaa jaamacadda tan dhismadeeda oo ka koobanta nooc kasta oo waxbarasho intooda badan inay ahaan doonto mid dhalinta Soomaaliya ay kaga baxdo jahaalada qodada dheer anoo aaminsanay si badsan doonaanin waxyaalaha ka maqan ama xubnaha ka maqnaan karaba oo aan leeyahay weli inaga nafteenu haddaynu abuuranno mooyi inaynu ku shaqaysan lahayn iyo in kaleeto waxyaabaha kale ee taariikhda u galay dawladii kacaanka ayaa waxaa ka mid ah dejintii abaaraha daryeelka caafimaadka iyo sugidda nabadgelyada oo dawladdaasi ay ku guulaysatay min Raas Kamboni ilaa iyo Raas Casayr Ila
غفوركي وشيله ويرما انت عالميته وقاسك دالغالا اكتوبر انا لها عليو قبيلي كغريتي عليو دليو دعك اسيدي بلقينا عفاع الباب غفوركي وشيله ويرما انت عالميته وقاسك دالغالا اكتوبر انا لها ودي يا دنيا عبيد وبحسورة دوغين اسماعي يا ابني مو وآبي جتي دالغالا اكتوبر انا لها 1970kii dowladii kacaanka waxay qaramaysay bangiyadii iyo hay-adihii kale sida gaarka loo lahaa iyadoo dadkii xoolahaasi lahaa loogu wargeliyey in xoolahoodu dib loogu celin doono madaxweynihii kacaanka oo umuurtaasi mar waraysi uu bixinaya wax laga weydiiyey ayaa yidhi gabar baa walaalkeed naafka qabtay waxay naafka walaalkay qabtay hadba waa saanka markaanu taageeraynay ummadda soomaalida oo badan marka xabeelaaso marka haddii ninkii bashariga ahaa waa hadda soo dhigta haddii uu taas u gartara waa nin fiican haddii uu keligay noolaado inta kale hadhimato ugu gartaa isagay jirtaa laakiin anagu dal nagama hayso waxaan ku leeyahay ninkii hadda xoolaha lahaana horeyahoonaada lagu xanuuniyay u leeyahay xagga warshadahoo annaguna ay kaala shaqayno oo dowladda nafteeda kaala qayb gasho oo sheer ha yeelato ama qaar ha yeelato kuwii shaqaalaha ahaana dowladda ba shaqaalaha leh dowladda nafteedaba iyagaa leh shaqaalaha iskale iyo dhalinyarada dadka naga waaweyn bacdana ay yihiin dadkii caruurtaas sii waxya dhalay dad bay annagana waajibkanaa wey inaan caruurtii korino oo weyneyno oo iyaga mas-uulka u gudbino ama annagu meeshii haysanino kaligana ama كبغي شبارا حبال مري شغالة حبيني غضوبلا كبغي شبارا حبال مري شغالة حبيني غضوبلا قالوا بلسان بلسان هي برواغو قالوا بلسان بلسان هي برواغو بلسان هي برواقو الله بلسان هي برواقو haddaba waqtiyadaasi waxaa dowladii kacaanka ay u jeysatay qoraalkii farta Soomaaliga oo noqday dhaxalka kaliya ee ka haray kacaankii kadib burburkii iyo qaranjabkii Soomaaliya mid ay ku guuleysatay sanadii 1972 qoristii farta Soomaaliga taasi oo noqotay mid meel waliba oo dalka laga hirgeliyay dowladii Soomaaliya waxa lagu xasuustaa xanaanaynta caruurta iyo ubadkii kale iyagu aan haysan cid daryeesha haddaba dowladdaasi waxay dhistay ciidamadii gulwadayaasha kuwaas oo iyagu ahaa dad iyagu aan wax shaqo haysan haddaba waxaa jirtay hees loogu magacdaray gulwadu siyaad oo guud ahaan ka hirgashay dalka taas oo iyagu ay qaadi jireen shaqaalihii dowladda balse arinta xusida mudan ayaa ah in shaqaalihii ajaanibta ahaa ee dalka ku sugnaa iyagu si iskooda u barteen heestaasi عندي ودا كل واقع برواقة نهر سيغالي فلان قبعايا نركابي دامايا نواقع اسكوباقايا برباديو شغاله اسبيرسلو بربتاغا تورادورا رميكا صوبها وبالا كالي ها ها عندي ودا ليني بدباديا وبالا كالي ها ها عندي ودا ليني بدباديا
dowladii kacaanka waxay maalin kasta oo loo dabaaldegayo curashada kacaanka ay furi jirtay amaba xariga ka jari jirtay mashaariicyo lagu horumarinayo iyo dhismooyin kale oo lagu kordhinayo magaalada caasimadda iyo waliba gobolada dalka Soomaaliya. معروف ويان رجعيده waxay u bixisay ifi aakhiro kacaankuna wuxuu baxshay xabar bila inay xabar bila tahay wardhafoor buu ku yaala geesta kale marka la eego dowladii kacaanka waxay si adag uga soo horjeeday habdhaqanka marjiciyada iyo gumaystaha maanta joogta iyo dadka Soomaaliya gudkiisaba wuxuu fahmay inuu qurmin yahay gumaysigu calan kaliya oo meel ka washa xornimada la yiraahdo gumaysigu wuxuu ku fadhiyaa dhaqaalaha wuxuu ku fadhiyaa mabaadi'da markii laga dilo wuxuu ku fadhiyaa markii qoomiyada laga dilo wuxuu ku fadhiyaa markii mandula isugu dhibo la isku kaadiro kuwa ka inda xiran oo indhahooda iyo maskaxdooda ay ka daboolan tahay nalka weyn ama nuurka weyn oo ifahaya oo Soomaaliya oo ifahaya oo xorriyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo golamaysiga gaarsiinaya kuwa ka maskaxdooda iyo qulubtooda iyo indhahooda ay ka badan yihiin oo waxa xukunkooda ka arkaya kuwaasu waa jooga isticmaalna lacagtiisa badneed waa haya muamiraadkiisa weyna waa haya weelka adduunka isku haya waa muuqata waxaan ka digaa Soomaaliya ana gumada aynu ku noqono ana aynu dafacaan ana wadana revolution ama dadka aan forces ka waxaan ka ballan qaadaynaa ilaa dhibicda ugu dambaysa dhiiganaga inaan dib u noqonin wadada xalaasha oo aan hayno dowladii Soomaaliya waxay xiriir mugle la yeelatay Itixaadkii Soofiyeti waxay heshiisyo saaxiibtinimo iyo kuwa dhaqaalaba la gashay wadamo caalamka ku teedsan qaaradda Afrikana waxay dowladdaasi noqotay mid ka mid ah quwadaha ugu xoogan ee qaaradda waxa kale oo xusid mudan in dowladdaasi ay qayb weyn ka qaadatay istiqlaalsiinta iyo helidda xorriyad ay ku taamaan gaar ahaan wadamo ay ka mid yihiin South Africa, Djibouti, Angola, Namibia iyo waliba Tanzania 1974 Soomaaliya waxay martigelisay shirkii Midowga Afrika kaas oo ka dhacay magaalada caasimadda ay Muqdisho oo ay ka soo qayb galeen madax badan oo Afrika ka kala socday isla sanadaasina Soomaaliya waxay ku beertay ururkii Jaamacadda Carabta جمهورية الصومال الديمقراطية رئيسا وحكومة وشعبا التي تؤكد بانضمامها للجامعة ودولها الأعضاء متصلة بالتاريخ العربي الإسلامي
waqtigaasi Soomaaliya waxay ahayd dawlad horumar ballaaran hiigsanaysa iyadoona dawladii kacaanka sanadii 1976 ay qaadatay mabda hanti wadaagga cilmiga ku dhisan waqtiyadaasi dawladii Soomaaliya waxay dhistay jabhadii xoreynta Soomaali galbeed ee Western Somali Liberation Front taas oo ka dambeysay khilaaf ku aadan dhulka Soomaalida ka maqan oo dawladdaasi u arkaysay inaan sinaba looga maarmin waxaana jabhadaasi hoggaanka u qabatay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray sanadii 1977 ciidankii Soomaaliya iyo waliba jabhadaasi ayaa guulo ballaaran ka soo hoyay waqtiga dagaalkaasi kadib markii dhul ballaaran ay kala wareegeen ciidanka Itoobiya waxaa dhacday markii dambe in ciidankii Soomaaliya ay ku soo jabaan dagaalkaasi kadib markii ay soo garbiyeen ciidanka Itoobiya kuwa Itixaadka Sofiyeeti iyo waliba Cuba haddaba taasi waxay keentay in ciidankii Soomaaliya ay dib ugu soo laabtaan halkii hore ay uga duuleen arrinka dagaalkaasi waxa uu keenay in caalamku indhihiisa ku soo jeediyo Soomaaliya iyadoona wadamada waaweyn ee quwadaha dunida isbida ay dib u gurasho ka sameeyeen xiriirkii Soomaaliya ay la lahaayeen waxaa sidoo kale xusid mudan in saameyn weyn ay ku yeelatay xiriirkii arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay la wadaagtay wadamadaasi 13 bishii November 1977 kulan degdeg ah oo hogaamiyaashii kacaanka Muqdisho ku qaateen waxaa xiriirka lagu jaray midowgii Itixaadka Sofiyeeti هذا يلي يا هول بدن
intaa wixii ka dambeeyey Soomaaliya waxay ahayd mid maalinba sii galaysay jawi aan qurux badnayn waxa dalka ka yeegleelmay jabhado kala duwan oo ku kacsanaa dawladii kacaanka kuwaas oo aakhirkii iyagu jilbaha u aasay 26 January 1991 jabhadahaasi riday dawladii kacaanka ayaa dalka u horseeday dagaalo ahliya iyo ismariwaa siyaasadeed Allah u naxariistay madaxweynihii kacaanka General Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa magangalyo siyaasadeed ka helay dalkaasi Nigeria oo bilowgii bishii January 1995 ku geeriyooday magaalada Lagos ee wadankaasi Nigeria daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkaasi gaarka ah barnaamijka waxaa halkan idinkaga tabinayay anigoo Cabduqaadir Qayska waxaa gacan iga siiyay Uriya Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus inta barnaamijkan mid lamida dib aanu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa meelba joogtaan isku duubniba dadka iyagoo dulli kaga baxdaan